munaasabad lagu xusayay 48 guuridii ka soo wareegatay markii la qoray afka Soomaaliga oo ay soo qaban qaabiyeen midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed ee Maqso ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda. munaasabadan oo ahayd munaasabad si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoon-yahano waxgarad culimo u diin iyo qorayaal iyo abwaano iyo xubin ka socota safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Uganda. ugu horeyn madasha waxaa daahfuray gudoomiyaha midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed ee dalka Uganda Mudane Cabdiqaadir Cumar Cabdulle Fiidka 1972 ayaa la shaaciyay qoraalka 48 sano kadib runtii sharaf bay inoo tahay inaan xusno maalintaas iyada ah maraaxil kala duwan ayuu soo maray kolayto hadduu alla idmo qaab presentation ahaan ayaan ugu soo jeedin doonaa intaan halkan ku sugannahay mar kale aad baan idinka mahad celinayaa hadalka mar raba inaan sii dheereeyo mas'uuliyiin kala duwan baa inoo joogo runtii hadli doona hadduu alla idmo iyo dad markaasi runtii wax badan ka haya taariikhda iyo sooyaalka afkanaga. sidoo kale madasha waxaa ka hadlay aqoon-yahanadii iyo culimo diinkii ka soo qayb galay. guud ahaan farqi baa u dhaxeeya farta iyo afka. afku waa waxa lagu hadlo oo waxa weeye Soomaalidu intay nolodu waa hadlaysay laakiin farta way waxa la xusayaa jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ama qaramada midoobay hay'adda u qaabilsan waxbarashada iyo cilmi-baarista ee UNESCO ay soo gaabiyeen 1999 bish 22 Febraayo waxay u astaysay inay noqoto maalinta la xuso afafka hooyo ummad waliba afkeeda inay xusto muhiimadda laga leeyahay waxa weeye afku waa haybadaada waa haybsoocaaga waa waxa sheegaya ummadnimadaada qofka Soomaaliga iyo qofka Kukuyada iyo qofka Lugandada iyo ninka Miyankoolaha ah qof waliba markuu hadlo Ilaahay ka hadlisiyo baa la garan karaa ciduu yahay. ugu dambeyn waxaa soo xiray la taliyaha labaad ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda Mudane Jibriil Afyare. sharaf bay tahay inaan maanta idin kala soo qayb galo xuska maalinta afka adduunka meel walba looga dabaaldegay. waxaan kaloo rabaa inaan kugu bashaareeyo Soomaaliya dawladda Soomaaliyeed inaan caawa halkan fadhino madaxweynaha iyo prime ministerka way og yihiin waana idin soo salaamayeen waana ku mahadsantiin. waxaan rabaa inaan ku salaamo magaca madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaan idinku salaamayaa magaca ra'iisul wasaaraha ummadda Soomaaliyeed Xasan Cali Khayre iyo anoo mas'uulkii safaaradda mas'uuliyiin kala jirta kamid ah caawa magaca safaaradana waan idinku salaamayaa. dadka loo boqo idinka ma aha ya dadka xagga jiro qurbaha la lahaa waa say wallahi waxaas ya marka idinka waa fiican tihiin meeshaan ka sii wadaynaa waana dadaalkiina hore wada. runtii afka waa nimco Ilaahay oo dadka siiyay af oo dhan waa nimco Ilaahay nimcooyinka Ilaahay waa weyn bay kamid tahay afka. sanad walba 21 February ayaa la xusaa asaaska afka Soomaaliga. Abdullahi Ibrahim Abdi Kalsan TV magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda.